fursadda koowaad oo ugu muhiimsan waxa waaye in Somaliland dadaalkeedii maaragtay ay ku raadinaysay in ay aqoonsi hesho ay weysay oo markan ay ku qasban tahay inay sidii kale wax u raadin karto u raadiso Soomaaliyana ay ku soo fashilantay inay dawlad aan Somaliland ka mid ahayn ay xamar ka dhisto marka hadda labada qolaba waxa la yiraahdaa mutually hurting stalemate labada qolaba marka darbiga waxa heli kartaa marka aadaysa labo waxaan u arkaa aniga in ay fursad tahay Ethiopia oo weligeed aan taageerin wada hadaladan Somaliland ama midnimo la'aanba oo positionkeedu uu ka duwanaan jiray maanta ayada iyo great powerka waxa Mareykanka iyo European Unionka iyo African Unionka iyo Djibouti iyo kulli inay aragti iska agdhow ka yeesheen arrintan cusub oo ay bushkan hadda raba yani isla riixidan ay go'aan isla gaareen ayadana waa fursadan hore uma jirin waa fursad cusub fursadda saddexaad oo aan isleeyahay runtii waa muhiim waxa waaye in dawladda hadda jirta sidii kuwii horeba dhaqaale meesha kuma yahay laakiin at least is political waxay samayn jireen tanaasulaad siyaasi ah laakiin dawladda hadda jirta Farmaajo particularly sida ay wararka xogaarka sheegayaan wuxuu ogol yahay oo diyaar ka ah tanaasulaad siyaasi ah iyo tanaasulaad dhaqaale ah dhaqaalaas ama ha noqdo maaragtay compensation ama ha noqdo wax iska development oo la wadaagi doono dhaqaalaha marka waa mid ka imaanaya waxaan deyn cafiska la socdo maahan oo hadda Soomaaliya qaslateeda ku jira iyo lacag hadda Soomaaliya bixisa ma haysto tanaasulaadka siyaasiga oo dabcan laga hadlayaana waa waxa soo socda sidii loo wadaagi lahaa hadiiba hal meel ay isku dhamaadaan marka fursadda ayada ah aslan way jiri jirtay oo wataan hadda ku lahaa hadii horena way samaysay Farmaajo hadda uu sameeyay badana dhaliilaha yimaada waxa waaye in ay Farmaajo ha noqoto ama madaxdii horeba ha noqotay waxa ay international community mar walba ku celiyaan sanadka ugu dambeeya ayaa tanaasulaadkaas inta badan yimaada ay dhaxaan ma yimaado sanadaha ay madaxdu ay bilowga yihiin laakiin waxay doontaa ha noqotay aan waxaan u arkaa inay still tahay fursad saddexdaa fursadood ayaa jirta waxaa laga hadlayaa qadiyad xasaasi ah iyo qodobo xasaasi ah tan ugu caansan ee dadka dhagahooda mar walba ku dhacda waxaa ka mid ah midnimada Soomaaliya waa muqadas iyo Somaliland oo dhinaceeda dhahaysa go'itaanka iyaga ama madax banaanidayadu waa muqadas ka soo qaad inaad ka mid ahayd dadka wada xaajoodkan miiska fadhiya lafdhabarta u ah halkeed wax ka bilaabi lahayd ajenduhu muxuu noqonayaa talaabooyinka xiga maxay noqonayaan iyo dariiqa ama tubta wada xaajoodku uu ku dhacayo horta wax muqadas ma jiraan meeshan kitaabka Ilaahay baa muqadas wixii ka soo haraa waa wixii aan isku heshiino ama aan isku raacno ayaan ilaashanaynaa ilaa markay danteena ay u adeeg waayaan waan bedelaynaa waaye saddex horta booska mowqifka ay Somaliland taagan tahay oo ah waanu kala tagaynaa iyo kan Soomaaliya ay taagan tahay waanu midnimadii ayaan joogaysa oo haddaba sida xamarta waxa waaye Somaliland waxay ula dhaqmaan inay maamul goboleed tahay oo sida ay maaragtay maamul goboleedadan shanta oo kale ay ula dhaqmaan labada mowqif waa laba mowqif oo cad oo practice-ka hadda uu ku shaqeeyo ay tahay qolada hadda waa tagnay waxba isku manihin iyo kuwa dhahaysa ma tagin madaxdiina Soomaaliya xamaran ku dooranayna maamul goboleed ayaa la mid yihiin labada arrin ay ahayd labaduba hadda ma shaqeynayaan xaqiiqatan sida muuqata waxa soo haraya marka waa in inta meesha la iskala yimaado optionada ka sokeeya intaas oo option baa jira Tanzania hadda koor wuxuu sheegay in confederal iyo federal iyo waxa soo dhan laga wada hadli karo Xuseen Bulhan mar wuxuu sheegay associational state waxa la yiraahdo in laga wada hadli karo Soomaalidu waxay hadda aad uga hadashaa waxa asymmetric federalism la yiraahdo in laga marka optionadu aad bay u badan yihiin anigu ma qabo marka in la iska soo xiro oo hadalka hal geed lagu xiro oo waa baxayna iyo ma baxayna iyo arwish hadii meel lagu gaarayo 30 sano hadda dhamaan rabta
waxaad ay qolob gaar u ugu hirgashayna ma jirto waxyaalaha ugu sahlan aaruno meesha yaalla waxa waaye dowladda xamar joogta election aan qabanaynaa oo qof iyo coda waa kuwa doorasho qof iyo cod aan qabanaynaa waa kuwa leh doorashada qof iyo codka ee Somaliland ka qayb gelin xagee keenaya يعني عقلي عادي قاعد مركو شقينيا Somaliland صار ديترا واسك بحيا هذا بحكي كرتو سجل لا تنسني بحيسي واحد international community كان سعودي بمعنى حد Somalia ما بدي دين بقى وواحد جرا دولة عصب عالم كأنه كسر بيرتو وحيلها هاي ودوين الأمر لحد يسدد دل أيام ربعين القرآن أدوية أو أي دولة كارنسا لحد يسدد دل ربعين القرآن مركز الفيريو آخر كوحي سوي مادان لابد قضب كريه قضب إن دولة كم ترسل دولة شنطة وفيتو باور كلا أي قوضته iyo in dawlad kamida dawladaha veto power kale aysan ka horimaan halkaas ay isugu imaanaysaa Kosovo oo boqoliyo hodho dal ay aqoonsan tahay qaramada midoobay caalam waa laga sii laayay macnaha waxa waaye dawlado hortaagan ayaa dawlado waxa jira Ruushia leh oo aan ogolayn marka Somaliland ma jiro Ingiriiska soo gumaystay xataa ma ogola inuu qadiyada Somaliland champion gareeyo tan kale Chinese iyo Ruus iyo oo ayagu secessionist groups oo rabayna go'aan qaba ayaa inta badan mowqifkooda asalka wuxuu yahay inaysan diyaar u ahayn inay taageeraan marka meesha hadda laga hayo Somaliland ma way ahayn Soomaaliya iyo xamar ma ahayn waxa waaye international community African Union kiyo asla taagan wax soconaya ma laha meeshaas asalku ahaa marka haddii qancin karaan oo ay kaligood ay bixi karaan arintu hadda maanta isma soo gaarteen Soomaaliyana haday dawlad dhisa karaan maanta lagama wada hadleen doorashada dadban hadda loo fadhiyaa in laga hadlo marka aniga waxaan isleeyahay arinta ayada waqtigeedii waa la soo dhaafay inaan waqti dambe ku dhumay